سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعنا وناكسن دلهانتين أصحاب تقاليد كحرن كنال يوتيوب كامل ترينين كسر دوادا كورسدين HTML وانكجرنا برتمها ما أنت وحين قادن دونا عشر كني تطبات إنه أكو أرك دونا أفر تاج أو مهمة وهطيا إنه يجنون لبدن تاج وخرية أي مهمة جارة أوليين وبسيدية سوق بيا علمية سيدا ماديسكا فيزيكسكا كيمستريكا iyo maadooyinka kale ay isticmaalaa subscriptiga iyo square-ka amaba hoosgalaha sida x square oo kale ama hydrogen oo balaskeedu kor yahay iyo sidoo kale compound-ka loo yaqaan sulfuric oo SO4 hoos yaala afartaas oo kale sida loo hoos dhigayo square-kaas oo kale sida x-ta loo saarayo h-taas oo kale sida balaska loo kor saarayo dhammaantoodba waxaynu ku arki doonaa casharkan waana koodhadh easy oo ay fududahay sameyntoodu markaa ha ka warwarin shay walba waxaynu u qabanaynaa itus oo itaabsi haddii alla idmo koodhka kale xiga waxa weeye koodh ay isticmaalaan isna website-yada naxwaha kale ka sheekeeya ama soo gudbiya kaas oo laba meeris la isbarbar dhigayo meeriskaas oo midna la leeyahay uu saxsan yahay midna la leeyahay uu khaldan yahay marka inagu kan tusaale ahaan baan u soo qaadanay laakiin ma aha kelimad caadi oo jirta waaye haddii aynu meeriskan koowaad ka bilowno cirifka geeska Afrika waxa ku yaal carri Soomaaliyeed kelimadaas waa sax oo Soomaali waa degtaa geeska Afrika ka gudub cirifka geeska Afrika waxa dega dad Yaman ah kelimad jirta maaha marka sidaa daraadeed marka dadka lagu kala tusayo inuu kan korona saxsan yahay marka tagga waxaynu isticmaalaynaa tagga loo yaqaano asterisk waxa xiga oo isna isku shaqo yihiin tag kale oo la yiraahdo isna del isku shaqo bay qabanayaan ha yeeshee dhinaca qoraalka bay kala duwan marka kii aad doontaba waad adeegsan kartaa marka laba shay isbarbar dhigaysa inaad mid dhaxda ka mariso qoraal kaasoo tilmaamaya inuu qaldan yahay kaasi ka kore ee adeysana ay muuqato inuu saxsan yahay waayahay haddaba si aynu sameeyno oo aynu sula aragno waxaynu aadaynaa page aan ku soo sameyn jirnay casharadii hore si aynu shay walba itus oo itaabsi oo niraahno waxaan aadaynaa page aan ku soo sameynay casharadii hore oo aan sii wadi doono intan waa inta salaans ka sameystay waan iska saaraya waxaan ka bilaabayaa taggi fontiga oo xoogaa fartan waaweyneenaya fonti markaan qoro size baan raacinayaa ka equal partitionadii markaa farta size-keeda 30 ayaan ka dhigayaa xaggana wax ka soo xidhaya taggi fonti waliba maan xidhin xagga dambe slash baan ka tagay slash-kaasi wuxuu muujinayaa inuu taggaasi xidhan yahay oo la isticmaali karo haddii aanad xidhin laga yaabaa wixii ka dambeeya oo dhan inuu tagga amarkiisa qaato laakiin intaa ku dhex jiruun baa imaka amarkaas ku dhacaya halkan waxaynu qoraynaa h marka aynu qorno waxaynu bilaabaynaa inaynu qorno tagga marka waxaynu qoraynaa sub layer marka labadan sub waa isku dhawaaq ha yeeshee dhinaca qoraalka ay kala duwan yihiin midna waa b4 book midna waa b4 pen marka tan la kordhigayo waxa weeye b4 pen ayay ku dhamaanaysaa marka aan sub qorno xarafka la rabo inuu xagga sare maro ayaa halka la gelinayaa oo marka maxaan gelinaynaa plus markaynu gelino taggan baynu soo xidhaynaa sub tag saas ayuu ku xidhan yahay ht xagga dambe ayay joogtaa pluskina labada tag buu dhaxeeyaa midna furan yahay
midna xidhan yahay. balaan save garayno control s, waxaan qaybtii browserka aadno refresh garayno. intan hore waa inaga iska saarnay, tan unbaa kusoo hadhay. marka hydrogen water waxaynu qoraynaayo kale x square. x square na saa loo qorayaa intan hore ayaan iska soo koobi garaysanaynaa maadaama ay isku mid yihiin. xagga horena br baan dhahaynaa, br hoos u deg, kadibna halkan baynu ku paste garaynaynaa. waxaynu bedelaynaa halkaa, waxaynu bedelaynaa plus oo waxaynu ka dhiganaynaa 2. halka h tana waxaynu ku bedelaynaa x. marka control s isna waynu eegaynaa browserkii refresh garayno. x square na water, hydrogen oo inaga hore u sameeyno. amaradaasi way iska fudud yihiin, waanaad samayn kartaa, aad bay easy u yihiin. waxaynu eegaynaa amarka xiga ee ah del. br horta br inaan ilaawin, mar walba br inaad tiraahdo waa muhiim. waxaan qoraynaa qoraalkii koowaad waynu qornay. xaggana br baynu lehnahay break row. tana qoraal kale aynu tilmaamaynaa oo aynu kan barbar dhigno. waxaynu ku xigsiinaynaa tagga asterisk. marka asterisk iyo delba waa isku mid shaqada, laakiin xagga qoraalku bay kala duwan yihiin. ka doontana waa isticmaali kartaa. asterisk baan ku horreysiinaynaa. asterisk waxaa loo isticmaalaa marka aad laba shay isbarbar dhigayso, kaas oo aad midna tilmaamaysa inuu qaldan yahay midna saxsan yahay. marka kii qaldanaa ayaad u isticmaalaysaa taggan oo aad asterisk dhahaysaa si uu dhexda u mariyo line. marka meriskan koowaad haddii aan akhrino, cirifka geeska Afrika waxaa ku yaal carri Soomaaliya. waa saxo dad Soomaaliyeed baa dega. halkan kale cirifka geeska Afrika waxaa dega dad Yamaniyiin ah. kelimadaasi maha kelimad jirta, waa mid aan samaysanay, yacni tusaale ahaan inagu ujeedno. marka halkaas baynu gelinaynaa taggii del ama asterisk. asterisk baan horreysiinaynaa. asterisk waa kan. asterisk waxaan ka soo xiraynaa qoraalka dabadiisa /asterisk control s. aan tijaabino, aan refresh garayno browserkeena. qoraalka hore waa sax oo inaga niri dad Soomaaliyeed baa degan geeska Afrika. halkana inaga niri dad Yamaniyiin ma degna geeska Afrika. marka meriskan dambe ayaa khaldan. khaladkiisana waxaan ku muujinay tagga loo yaqaano asterisk. bal tagga kale xigana ha isla eegno. xaggan br baan dhahaynaa. br Oromadu waa dad ah qoomiyad gaar ah. fabric row baan sameynaynaa. br dana meriska laynu qoraynaa. aan kasoo turkina kan saan aragno. labada meris ee kala hadaynu isla eegno. Oromadu waa dad ah qoomiyad gaar ah. marka meriskaasi waa sax, wadana waa dad qoomiyad gaar ah oo Itoobiya degta.
meeriskan xiga oromadu waa dad Soomaaliyeed marka meeriskaas aan wax jira ahayn sidaa daraadeed waxaanu isticmaalaynaa taagi cadeynaya inuu yahay meeris qaldan marka taagi hore string waan isticmaalnay kan dambe ayaan ku xigsiinaa del baynu xagga ka soo xireynaa del waynaga soo xidhnay aan tijaabino meeriskii dambe qaldanaa ayaynu marinay amarkii string oo ah qoraal dhexe in la mariyo kaasoo tilmaamaya inuu meeriskani qaldan yahay ama kelimadaasi marka siyaabahaad ayaad uga faa'iideysan kartaa casharkeenan maantana intaas ayuu ku kooban yahay kooraska waxaa naga go'an inaan dhammaystirno CSS-ka oo ah qaybta ay caawiyaan HTML-ka waa HTML-ka kama baarmo CSS iyana waxaan rajaynaynaa markuu kooraskani dhammaado inaanu soo gelino si faahfaahsan insha Allah taala uga hadli doona ha ka daalina inaad channelka ku xidhnaataan graphic design-ka maxay tahay HTML-ka dhammaan intaba diyaar baan u nahay inaanu soo gelino aad baad mahadsantiin asxaabta qaaliga ku xiran kanaalka